yaa taageersantahay oo codkaaga maalinka cod bixinta aad siin doontaa xisbigaas ana markaan ugu aad ayaan mutaabac ugu ahay la meeyda iyo maalinka maanta hadda wadiga arkaya nafiska dadkii macaanka lahaana macaankii ka baxay xisbiyadu iskuma wada jiraan xisbi u soo dagaalamay xorriyad marka xisbiga ku taagan xaq ayaga weey maxaad ugu codeynaysaa maxaad ugu codeynaysaa xisbiyada kale kaga duwan xisbiyada kale ka shashaac badan xagga shashadaas u dhaafay cadaanta iyo wanaagga iyo waxyaabaha muujinayaan waxyaabo badan deegaanka uga soo taagnaa waa xisbiga ma garanaysid sagaalka xisbiga la sheegayba magacyadooda ma garanay haddii aan arka sambosto kaardhi uu ku dhagan yahay meel lagu dooranayo isagaan ugu ridi haddii kale oon arka dad kale oo kala duwan ruuxan doonaan dooran marka adoo shakhsi taageer baan tahay deegaanka Soomaalida waxa ku soo wajahan codbixinta doorashada toddobaad iyadoo loo dareeray qaadashada kaararka codbixinta doorashadan oo u muuqata mid ka duwan doorashooyinkii hore lagu qaban jiray deegaanka ayaa waxa ku tartamaya ilaa 9 xisbi oo kala siyaasadda haddaba warbaahinta jiilka maanta media waxay samaysay baaritaan madax bannaan annagoo markaasi mikrofoonka in la dhex marnay shacabweynaha ku nool magaalada Jigjiga si aan bal u ogaano ama u qiyaas qaadano sida ay xisbiyada sagaalka ah ee ku tartamaya deegaanku u kala taageero badan yihiin gudaha magaalada Jigjiga la socda muuqaalkan magacaygu waa Kaysar Cabdi Khaliif xisbiyadu iskuma wada jiraan maadaama xisbiyo badan oo tartamaya ay jiraan insha Allah xisbiga BP ayaabaan u codeyn doonaa insha Allah codkayga siin doonaa hadii Ilaahay ilaas yaa taageersantahay oo codkaaga maalinka cod bixinta aad siin doontaa bismillaahir rahmaanir rahiim sida aad arkaysaba horumarka ka jira deegaanka xisbiga sameeyay ee barwaaqo ayaan taageersanahay sababtoo ah isbedel ballaaran ayaad ka aragtaa meesha aan taaganahay waad aragtaa magaalada isbedelka iyo horumarka wadanka ka socda sidaa darteed aniga shakhsi ahaantayda waxaan taageersanahay xisbiga barwaaqo oo u codeyn doona waxa kale oo dadkan iyadana aan macnaha aan ku dhiirigelinayaa inay taageeraan xisbiga barwaaqo soo jiilka maanta media maanta waxaan dadka weydiinaynaa waxa weeyaan hal su'aal oo ah doorashada toddobaad waxa ku tartamay 9 xisbi sagaalka xisbiga taageeraysa oo codeyn doonta maalinka la gaaro doorashada waxaan أنا تاجر عبد القادر مع العبد الله وحن تاجرية حزب أوناليف حزب أوناليف هذا عدين دون كاسن عدين دون الدولة واي حزب أوناليف ما حدا قدر تحزبية ذا كلا سجالك هو حزب أنا ممكن كتاجر سنوية صوما أنت لك بدر شيء ساينو جولس بدن أديات بقول كيف بقول هذا ما صنت مالك دورشة اللي جارو يلا عدك كسينة حزبية تاجر سنتا بسم الله الرحمن الرحيم أنا حزب بي بناهي marka insha Allah waxaan rajeynayaa 10 kabo waxaan ugu ridayaa xisbiga BB way imisad maxaad ku dooratay xisbiga BB waxaan ku doortay cadaaladda iyo sinaanta iyo horumarka imika wadadan aan lugaynayo kaliya ayaaban hadii toogu sokaysa wadadaas weeyaan koridorka marka insha Allah tusaale ahaan wax soo qaadada tirtaasa ka koow doorashada toddobaad deegaanka Soomaalida waxa ku tartamay in ka badan 9 xisbi doorashada maalinka la gaaro ee codeynta loo dareero xisbigeeda aad codkaaga ugu ridi doontaa waxaan ugu ridayaa xisbiga barwaaqo maxaad ku dooratay xisbiga barwaaqo waxaan ku doortay cadaanta iyo wanaagga iyo waxyaabaha muujinayaan waxyaabo badan deegaanka uga soo taagnaa ka naftayda marka waxyaabo badan maadaama deegaanka uga soo taagnaa xisbiga barwaaqo waxyaabo badan isbedel ah xagga maskaxda bini'aadamka waxyaabo badan isbedelada imika aad sheegtay ee xagga maskaxda bini'aadamka kamid bal hal qodob iyo laba qodob nooga daa hal qodob waxa kamid ah kow gurigaaga iyo waxa weeye naftaadaba inaad xisbiga barwaaqo waxaan ku taageersanahay waxa weeyaan gurigaaga adoo fadhiya nabadgelyo ku fadhiya alxamdulillaah rabbil caalamiin wax walbana ilaahay baa bixiya laakiin xisbiga barwaaqo waxaan ku taageersanahay nabadgelyada iyo cadaaladda iyo waxyaabo badan oo ku taageersanahay baa jirta marka codkaaga wax iska leh xisbiga barwaaqo ka dhiganta aad naftayda iyo waxa weeyaan codkayga wax iska leh xisbiga barwaaqo xisbiga taageersantahay maalinka doorashada la gaaro codeyn doonta noo sheeg magacaygu Naasir Axmed Abiib xisbiga isma qarinayo xisbiga barwaaqaan ahay waan ugu shubayaa insha Allah way maxaad xisbiga barwaaqo ku doortay xisbiya kale oo fara badan ilaa 9 ba ka tartamaya deegaanka Soomaalida sax taas waa cadahay waxaan ku doortay hada 10 sano ee la soo dhaafay waxyaalaha bilicda iyo hindisaha ay qaadatay dawladda xisbiga barwaaqo waxyaalo badan bay ku soo dartay ta kalabaad hadda diiniyan markaanu eegno hadda maanta waxaan arkaynaa in madaxtooyada afar wadareed lagu qabanayo ay dawladdu ugu qabanayso meel kasta inuu ra'iisul wasaarihii dalka ummadda masaakiinta la fadhiisanayo cid kasta xor bay u yihiin maanta xagga xukuumadda haddaan eegno waxaan doona ku hadla haddaan doono iyadan dhaliil karaa cid wax ama talaabo ka qaadaysa ma jirto marka waxaan ku doortay waan ka bogtay bana cabdaas baa leeyahay haweeney waxaan anu taageersanahay xisbiga barwaaqo ayaan soo dhaweynayaa waayo waxaan u soo dhaweynayaa
bilicda magaalada iyo sida maanta waxqabadkooda hadda ay u muujiyeen yaan ku taageersanahay. doorashada toddobaad ee deegaanka Soomaalida ka dhacaysa ilaa 9 xisbi baa ku tartamaya. maalinka la gaaro maalinka codbixinta xisbigeed codkaaga siin doonta. والله سجال يكون واحد كليجي ما كلا قمنا حسبه بين كل شيء ما ينا أنا شغال وحنا هاي شغالة يعني قريها دستا مركا شعب ما وش شغاياي حسبي ولي حسبي حتى هو ما نطونه marka xisbiyada tartamaya campaign-kooda hawlo kuma soo gaadhin ما بكلا قام بمحي سو قارين هذا sagaal xisbi baa ku tartamaya sagaalka xisbi adigu xisbiga taageersan tahay oo maalinka codeynta aad codkaaga ugu ridi doonto anu waxaan taageersanahay xisbiga madaxweynaha iyo xisbiga eega dhisan baan taageersanahay sababta aanu taageersanahay waxa weeye nabadgelyo caam ah oo dadka wada gaadhay yaa intay iyagu xilka hayeen ayaan ka helay xisbigaas waa barwaaqo marka anu xisbigaasan taageersanahay xisbigaasan taageersanahay anu aragtidayda magacayga waxa weeye Sharmaake Maxamed Gaaran. Sharmaakow maad codeynaysaa doorashadan kaarkiisa ma qaadat waan codeynaa insha Allah. waay xisbigee sagaal xisbi baa ku tartamaya doorashada toddobaad xisbiga ayaad u codeynaysaa codkaaga siin doonta xisbiga Onalif maxaad ku dooratay waxaan ku doortay xisbiga Onalif intaas sano xorriyad dagaalamay waa xisbi u soo dagaalamay xorriyad marka xisbiga ku taagan xaq ayaga weey doorashadii toddobaad ayaa soo dhow waxaana ku tartamay ilaa 9 xisbi xisbiga taageersan tahay oo codeyn doonta adigu walaal waan dhowahay waxaan taageersanahay xisbiga BB ee barwaaqo ayaan taageersanahay waay 9 xisbi oo tartamaya maxaad xisbiga uga dhex dooratood ku taageersan tahay kulli waxyaabo badan oo maaragtay xisbigan uu leeyahay oo kuwii hore lahayn baa jirta waxa kamid ah nabadgelyada kamid ah waxa kamid ah waxyaabo badan baa kamid ah marka xisbigan aad baan u taageersanahay marka waay ku soo dhaw jiilka maanta media magaca yaasiin baa la yidhaha barasho wanaagsan yaasiin Waay. maxamuud baa la yidhaha waay yaasiin maxamuud deegaanka waxa ku tartamaya 9 xisbi in ka badan doorashada toddobaadna wax yar baa ka hadhay xisbiga taageeraysa 9ka xisbiyadan la sheegayo ma garanayo waa ma xisbiga oo ma garanaysid sagaalka xisbiya la sheegayba magacyadooda ma garanayn halkay ka yimideen oo markii hore ma gudaha Itoobiya joogeen ama deegaankay joogeen dee tani imika uu nagu soo baxday ma garanayna anagu wali ma arag waligaa ma codeysay hadda ka hor ma imaan codin ma codin marka adu warkaba kama haysid xisbiyada aad ololeysanaya ee inta ordiyo waxaas oo dhan war kama haysid war kama hayo social media waa isticmaashaa ma social media waan isticmaalaa campaign-koodu kuma soo gaarin wali doorashada soo socota marka loo dareero xisbigeed aad u codeyn doontaa adoo is leedahay waxa weeyaan waxba tari doona sagaalka xisbi baa la kala sheegay xisbiga barwaaqo iyo Onalif garta inta kale ma garanaysid toddobada kale horta ii sheeg waxa weeyaan waa 9 xisbi waa xisbiga barwaaqo xisbiga Onalif xisbiga Siima xisbiga FEB xisbi waxa weeyaan la yiraahdo Somali Democratic adu 9 weeyaan okay كعكتر يا هرتا حسبي عكتر أنا كله هنا حسبي برواقة أنت ما تكويس حسبي برواقة حسبي أنا عرفت نقرب كوا قال دوراني متكمل labada midna ma dooranaysid labada midna ma dooranay sidoo kale waxa uu muuqata xisbi aad inta baadhay siyaasadda isku qancay ma jirtay ka dhigan ma jiro labada horta ma siyaasadooda aragnay waxay wadaan aragnay bal kuwa kale noo dhaamaan yaan doonaynaa inaan aad baa maasan waay wali mikrofoonkan uu dhex wareegaya shacabweynaha magaalada Jigjiga anagoo markaasi si xor ah u weydiinayna cidda ay taageersan yihiin ama xisbiga ay u codeyn doonaan maalinka loo dareero doorashada toddobaad ee deegaanka ka dhici doonta dadka qaar ayaa u muuqda inayna ogeynba xisbiyada tartamaya halka qaar kale ay u malaynayaan xukuumaddu iyo xisbigu inay hal mid yihiin balse dadka ayaan wali si dhex socon doonaan la socon magacaygu Axmed Aadan Cige waxaan u codeynaynaa xisbiga barwaaqo maxaad xisbiga barwaaqo uga doortay xisbiyada kale xisbi wanaagsan weeyaan xisbi nabadgelyo weeyaan xisbi horumarka ka qayb qaato weeyaan sida awgeed baan ugu codeynaynaa amaasan waay walaal dadka waxaan weydiinaynay doorashada toddobaad ee deegaanka Soomaalida sidaan wada ognahay wax yar baa ka harsan war haysaa mad codeynaysaa adoo kaarkii ma qaadatay yaa soo codeyn doonta waan codeynayaa xisbiga BB 9 xisbi baa ku tartamaya doorashada toddobaad ee deegaanka xisbiga taageeraysa maalinka codbixintana codka ugu ridi doonta bismillaahir rahmaanir rahiim anigu xisbiga aan taageerayo waa xisbiga barwaaqo xisbiga barwaaqo ayaan taageerayaa waayo waxyaalo badan baanu ka aragnay wadanka horumar badan bay sameeyeen kuwaasaan taageeraya biidnillah maxaad markaa xisbigaas maxaad xisbiyada kale 9ka uga dhex dooratay oo kugu soo jeeday xisbiyada kale wali wax qabadkooda ma aanan arag markaanu wax qabadkooda aanu aragnay baanu taageeri karaa laakiin xisbiga barwaaqo wax qabadkooda aanu aragnay dee waxa yacni macnaha indhuhu ay qabtaan bay ilku gooyaan baa leeyahay doorashadii toddobaad ba deegaanka ku soo dhow 9 xisbi baa ku tartamaya adigu xisbiga taageeraysa aad u codeyn doontaa maalinka codeynta la gaaro
haddii aniga warkayga la weydiiyo waxaan ku dhahay doorashadu xor iyo xalaal ay noqoto oo cod iyo qofkii ay noqoto kolba xisbigaan is iraado waa xisbi ku habboon inuu xilka qabto baanu codaynaya laakiin xisbiga barwaaqo ma codaynaya inkastoo aan ogeyn xisbiga kale oo la tartamay waa xisbiyada waxa ku tartamay xisbiga barwaaqo xisbiga onalif xisbiga waxa weeyaan feb zima iyo kuwa kale oo badan onalif haddii loo ogolaado oo waa loo ogolaya waana loo codaynaya maad u codaynaysaa adu mase uma codaynaysaa waanu codaynaya codkayga halkaas ku jira waxaan u codaynayaa xisbiga barwaaqo maxaad ku dooratay xisbiyada kale maxaad uga dooratay xisbiga barwaaqo waxaan ugu doortay musharaciisa isuu waddanka u qurxiyey waddanka u haweeyey iyo horumarka ballaaran uu sameeyey aywa maxamed aadan ismaaciil waxaan u codaynaa xisbiga barwaaqo xisbiga barwaaqada u codayn doonta ayo codayn doona insha allah maxaad ugu codaynaysaa yaa maxaad ugu codaynaysaa xisbiyada kale kaga duwan xisbiyada kale way ka shashax badan yihiin xagga shashadaas u dhaafay jaalka horumarka insha allah xisbiga aad taageersantahay codkaaga siin doonta adoo magacaaga ku bilaabay magacayga waxaa waye cabdigaan cali waxaan taageersanahay xisbigii BB inaan u codeeyo soo baxaana waan jeclahay hadduu ilaahay yiraahdo maxaad ku dooratay waxqabadkiisa dee waad aragtay dee magaalada bilicda iyo soo dhoweyn dadka iyo isbeddelka iyo dadaalka iyo waxyaalo badan baan ku doortay daawadayaal weli waxaan mikrofoonkan la dhex wareegaynaa shacabweynaha ku dhaqan magaalada Jigjiga baaritaankanna waa baaritaan madaxa bannaan oo annagoo jiilka maanta media aan samaynayno baaritaankan wuxuu socdaa maalinkii labaad annagoo markaa dadka hal su'aal kaliya weydiinayno xisbiga aad taageersan tahay isla markaana aad u codayn doonto maalinka loo dareero codbixinta doorashada toddobaad ee deegaanka Soomaalida sayid khaliifa sayidka dhalinyarada Soomaaliyeed ku soo dhawo jiilka maanta media maanta dadka mikrofoonka igu dhex wareeyay magaalada Jigjiga waxaan weydiinaynay inaan su'aal waxa weeyaan yaad taageersan tahay doorashada toddobaad ee xisbiyada deegaanka Soomaalida keebada codayn doonta horta waxaan salaamayaa guud ahaan bahda jiilka maanta oo muuqaalo tayo leh iyo maaragtay warbixinno kooban noo soo tabisa mar walba waan ku xidhannahay haddaan dhallinyarta nahay horta anu sayidka dhalinyarada Soomaaliyeed baana dhallinyaradaydu way fara badan tahay qaar onalif ka sharaxan baa jirta qaar BB ka sharaxan qaar feeb ka sharaxan qaar gildhi ah macallin la cabsaaq sar yaa sharaxan marka maadaama sayidka dhalinyarada macallin Mustafa dhalinyartu ka mid yahay marka dhallinyartayda kolba intii soo baxda alla juway alle umaan leeyahay tidaahid marka waxaan weeye wax godob ah iyo wax xisbi on gaar u taageeraya ma jirto saas darteed dhallinyarada Soomaaliyeed sayidku ahay guul iyo gobonnimaan leeyahay nin walba gaar u guuleeyo sayidow adaa ku haystay doorashada maalinka toddobaad ee loo dareero de qof walba muwaadina cod bixin baa laga rabaa absolutely aduu cod qiyaad ugu ridi doontaa codkayga de xaajigaan ugu ridi boose xaaji Mustafa ugu ridaya xisbiye kale oo sagaal baa xisbigiisa ka dooratay de ma xisbiga dhan ma dooran waa shakhsi Soomaa haddii aan arko Boosto Kaardhi uu ku dhagan yahay meel lagu dooranayo isaga ugu ridi haddii kale aan arko dad kale oo kala duwan ruuxan dooran marka adoo shakhsi taageer baad xaaji madax meel ka sarreyso la taabtay adduuna madaxu nagu weyn man socon lahayn xaajigu adduuna inuu wadin man socon karnaa marka waa inaan xaajigeena dooran sabab u taageero garanaya xisbiyada hadda loolamaya sababtoo xisbi aan aragtiisa ku qancay ma jiraba intaas ma lagu xidhaya magacayga waa xasan maxamed axmed waxaan ku haawan codaynaya insha Allah duleero deegaanka Soomaalida doorashadii toddobaad ayaa wax yar ka harsan waxaana ku tartamaya in ka 9 xisbi sagaalka xisbi adigu xisbiga taageersan tahay sidoo kale maalinka codbixintana keebad ugu ridaysaa waxaan taageersanahay xisbiga barwaaqo maxaan ku xawaayo xisbiga barwaaqo waxaan aaminsanahay xisbi waxaan ku xawaayaan dhaamo inaan la heli doonin maxaan ku future-ka maxaan ku xawaayo muddo mustaqbalka inay soo ku xidhan insha Allah sagaalka xisbiga kale maxaad xisbiga barwaaqo uga dhex dooratay barwaaqo waxaan ku aragnaa ku dooranay horumarka ballaaran nabadgelyada iyo cadaaladda bismillaah markoobaad magacaygu waa Soyib waxaan ka mid ahay dhalinyarta magaalada Jigjiga degan insha Allah waxaan islaahay markaan u codeeyo aan weligay ma codin markaan waxaan rasheeynaa noqoto markii ugu horeysay aan codeynayo waxaan codkayga siinayaa kulli jabhada olaf xisbiga onam sax ayaa siinaysaa maxaad iyaga uga dooro xisbigaaga maxaad uga dooratay xisbiyada kale kolley horta hal mid baa jirta hadday matalaad dhaba noqoto hadda waxaa jira qolyo ku magac ku qaadanay sida la sheegayo ma maqlin laakiin ma arkin laakiin waan maqlay haddaan helno matalaad dhaba oo xisbiga ah kulli codkayga waan siinaa anigii dhalinyar badanba xisbigada codaynaysaa barwaaqa loo codaynaya yaa xisbiga barwaaqa maxaad ku dooratay sagaal xisbi baa ku tartamay sodiga arkaya maaha ubaxyada iyo barwaaqada iyo laamayda iyo xareedda iyo waxqabadkaasaan ugu codaynaynaa taanbaad ku sii socon leedahay taaba horumarkaa hore u socdaan eeganayna horumarkaanaan eeganayna xisbiyada kale la tartamaya ballanqaadyadooda ma akhriday may waxa ma akhrin laakiin xisbigaasaan imika anugu aad ayaan mutaabac ugu ahay
laamida iyo maalinka maanta hadda wadiga arkaya nafiska dadkii macaanka lahaana macaankii ka baxay laamida cid waliba dhan u socoto maalinka maanta wax la kala taasana codayn hadal iyo dhamaantood soo dhawo ku soo dhawo jiilka maanta media saan ognahay doorashada 9 xisbi baa ku tartamaya 9ka xisbigaad u codaynaysaa adu anigu runtii waxaan u codaynayaa nin kolley muxaafid badan baan ahay weligay iyo allahay marka anigu BB baan u codaynayaa waxay ugu qabanayaan deegaanka markaan ogaado yaa hadba markii kii soo jiitaan marka iyada aan u codaynay insha Allah marka wali waad ka fiirsanaysaa bay ka dhigan waan ka fiirsanayaa aad baa maasad waay saaxiibaal intaa waxa ku dhan baaritaankii madax bannaana ee sameeynay ka soo qaatay 2 maalmood oo aanu goobo kala duwan oo magaalada Jigjiga aan dadka ku weydiinay su'aasha ah xisbiga taageeraysa ee u codayn doonto maalinka loo dareero codbixinta doorashada 7 insha Allah baaritaanna kala duwan oo madax bannaana waan sameyn doonaa nala socda